maanta waxaan safar ku tegi doonaa dalka Canada oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn uguna quruxda badan adduunka. Waxaan baran doonaa taariikhdiisa, dhaqankiisa, dadka ku nool, cuntooyinka, xafladaha iyo meelaha ugu caansan ee dalxiiska. Canada waa dal caan ku ah dabeecadda quruxda badan, dadka saaxiibtinimada leh iyo bulshooyin kala duwan oo ka yimid dhammaan geesaha dunida. Canada waxay ku taalaa waqooyiga Ameerika, waana dalka labaad ee ugu weyn dunida marka la eego baaxadda dhulka. Waxay xuduud dheer la leedahay Maraykanka. Caasimadda dalka waa Ottawa, halka magaalooyinka ugu waaweyn ay ka mid yihiin Toronto, Montreal, Vancouver. Canada waxaa ku nool ku dhowaad 4 milyan oo qof, waxaana dalka laga isticmaalaa 2 luqadood oo rasmi ah, kuwaas oo ah Ingiriisiga iyo Faransiiska. Dalka waxaa lagu yaqaanaa nabadda, waxbarashada tayada sare leh, caafimaadka wanaagsan iyo daryeelka bulshada. Kumanaan sano ka hor intii aysan Yurubiyiintu imaan, dhulka Canada waxaa deganaa dadka asaliga ah ee loo yaqaan First Nations, Inuit iyo Métis. Dadkani waxay lahaayeen dhaqamo, luqado iyo hab nololeedyo kala duwan. Waxay ku noolaayeen ugaarsiga, kalluumaysiga iyo ganacsiga. Qarnigii 16aad, sahamiyayaal Faransiis iyo Ingiriis ah ayaa yimid Canada. Faransiisku wuxuu degay qaybo badan oo dalka ka mid ah, gaar ahaan gobolka Quebec. Markii dambe Ingiriisku wuxuu gacanta ku dhigay qaybo badan oo dalka ka mid ah, waxaana tartan xooggan dhex maray labada quwadood. Sanadkii 1867, Canada waxay noqotay dal isku tashaday, waxaana la sameeyey dowladda federaalka ee Canada. Inkasta oo ay madax bannaan tahay, Canada waxay ka tirsan tahay barwaaqo sooranka Ingiriiska, waxaana boqorka Britain loo aqoonsadaa madaxa rasmiga ah ee dalka. Muddo dheer, Canada waxay noqotay dal casri ah oo hormuud u ah dhaqaalaha, cilmiga iyo xuquuqda aadanaha. Canada waa dal ay ku wada nool yihiin bulshooyin ka kala yimid meelo badan oo adduunka ah. Dadka reer Canada waxay aad u qiimeeyaan ixtiraamka, sinaanta iyo wada noolaanshaha. Dalka waxaa si weyn looga xusaa maalinta Canada Day oo ku beegan 1 Luulyo, taas oo lagu xuso aas-aaskii dalka. Waxaa sidoo kale jira xaflado badan oo lagu soo bandhigo dhaqamada kala duwan ee bulshada ku nool Canada. Dadka reer Canada waxay caan ku yihiin deeqsinimada iyo soo dhoweynta martida. Canada waxaa lagu yaqaanaa dabeecad qurux badan iyo kaymo waaweyn. Niagara Falls waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan dunida oo soo jiita malaayiin dalxiisayaal ah sanad kasta. Banff National Park waxaa laga helaa buuro waaweyn, harooyin buluug ah iyo xayawaan duurjoog ah. Vancouver iyo Canada waa dal hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka, gaaska dabiiciga ah, dahabka iyo alwaaxa. Waxay ka mid tahay dalalka ugu dhaqaalaha xooggan adduunka. Beeraha, warshadaha, tiknoolajiyada iyo ganacsiga caalamiga ah ayaa laf dhabarta dhaqaalaha dalka. Canada waxay leedahay qaar ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan dunida. Dad badan oo ka yimaada waddamo kala duwan ayaa halkaas u taga waxbarasho. Dalka waxaa si weyn looga tixgeliyaa tayada nolosha, caafimaadka iyo ammaanka bulshada. Canada waa dal leh taariikh qani ah, dhaqamo kala duwan iyo dabeecad aad u qurux badan. Waa dal ay ku wada nool yihiin dad ka kala yimid meelo badan oo dunida ah, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah dalalka ugu soo jiidashada badan dunida. Mahadsanidin daawashada muuqaalka. Haddii aad ka heshay, fadlan like saar, share garee, kana subscribe garee kanaalka si aad ula socoto muuqaalada soo socda ee ku saabsan taariikhda iyo dhaqamada dalalka dunida.